أيها الإخوة والأخوات، qaybtan waa qaybtii labaad calaamaadka aad ku garan kartid qofka saaxirka wax xaq ay weydii laakiin waxyaalahan inta kale aan sameeynahay hay weydiin inuu ku leeyahay tusaalo kale waad fiirinaysaa waraaqdii waxaad leedahay sheekh ani halkan waxaan u jeedaa summun bukmun umyun fahum laa yubsiruun aw fahum la aayadan arrintan waa forgery waay waxbuu bedelay adiga waxaa lagu dhahaa axmed magacaada axmed ma dhammaystiraa wuxuu leeyahay قلت لي maxaa laga wadaa waxaas maxaa laga wadaa waxaas forgery waa waxaan adi axmed maa lagu dhahaa mise axmedaa lagu dhahaa waay u dhammaystiri waaye marka صم بكم فهم لا muxuu u dhammaystiri waaye sabab usoo u dhammaystiri waaye maxaa waaye bedelaadaa la dhahaa xarifaadaa la dhahaa oo la qaldahayo ilaahay hadalkiisa subxaana watacaala baadi cad waaye waxaan waa ciyaar lagu ciyaaraya kitaabka ilaahay waxaan waa saaxiriin waaye 100% ogow had waraaq kasta ay ku siiyeen oo uu kugu qoran yahay xarfo iyo calaamado aan la fahmaynin ogow 100% qofka waraaqdan ku siiyay saaxir inuu yahay adigana iska jir ha ku hor dhihin hortiisa saaxir baa tahay oo kana tahay saana tahay arrintan waa arrin khatar ah waaye adiga dhibaato weyn ku keeni karta laana dadkan ay runtii waa dad nacladan weeyaan ilaahay kama cabsoonayaan subxaana watacaala haddii aad isku daydo isla markii inaad ka hortagtid oo la dagaashid oo caysid oo wax ka sheegtid oo wax tiraahdid isla markii waxa weeyaan aduu dagaal cusub kugu furahaya dhibaato badan uu kugu sameynaya shayaadiintiisu isticmaalaya marka aad ay ku dhibayaan adiga laakiin si tartiib oo tekniika meesha uga gaabso hana sii fadhinina iska jir sababta nabigeena sallallahu alayhi wasallam waa tuu yiraahday qofkii u yimaada saaxir oo wax weydiiya oo waxa weeyaan rumeeya diinteeda wuu ku gaaloobay hadduuna rumeyninna 40 maalmood salaad lagama aqbalahayo waadna u tagtay isaga ma barabtidba laakiin qof aad saaxiibatihiin oo kula ilaa iraac oo ku baryahayaa haya waayna keen saaxiibo waa tiraa adi isagii maad rabin oo mana socotay laakiin saaxiibka ay ku raali gelinaysaa qofkaanayta mujrimka waxaan qasaaya manaagtaanayta wax qasqasaysa ma aaminsanin ilaahay salaadaada kaama aqbalaayo 40 bari xadiiskaas waa xadiis saxiix weeyaan صحيح مسلم ayaad ka helaysaa laakiin waaba dhacdayba qofkii aad u tagtay maad ogeyn wuxuu yahay markii aad la kulanto qofkii mise waxaaba ku cadaatay inuu yahay saaxir adigana dadka waxaad u maleynaysaa kulligood inay yihiin wadaado dad fiican oo ilaahay ka cabsoonaya ayaa u maleynaysaa mana xuma arrintaas iyada way fiican tahay waa jiraneed qofkan inta wadaada u maleynaysa dadka inuu quraanka ku akhriyo oo kutufa u maleynaysay markii aad u timaaday sheekhaad u maleynaysay waana fiican tahay dadka sharriha ka maleynin ee u maleynay khayr sameynayaan mar walba waad u timid waa ku cadaatay waxyaalaha uu sameynaa wax kamid ah waa sixir weeyaan ayaa ku cadaatay oo shirki billah subhanahu wa ta'ala ay tahay oo jinni loo dhawaanayo adi marka ma soo hoosgaleysay xadiidkan inta laana qofkan khayr aad u maleynaysa inuu ku taagan yahay waxa uu sameynaa inuu saxsan yahay aad u maleynaysa laana maada ogeyn wuxuu yahay laakiin markaad u tagtay 100% ay ku cadaatay inuu ahayn wadaad sheekh ahayn dadka quraanka uu ku tufeen wax uu qasahayo oo saaxir ay ku cadaatay tartiib meesha uga baxso marka hadii laakiin aad iska fariisid ka dhageysatid markay ku cadaatay inuu yahay saaxir xadiidka soo hoosgaleysa laana waa dooratay inaad la fariisatid laakiin markay ku cadaatay inuu saaxir yahay oo markii meesha kaga tagto ka dhaqaajisa aad dhageysan waqtina aad siinin waxa weeyaan insha Allah xadiidkaas adiga ma aad soo hoosgaleysid insha Allah ta'ala laana jaahil ayaad ka ahayd qofkan ma aqoonin oo inuu siyaadiin la shaqeeyo waxaas dhan ma ogeyn iyagana meeshaan ay magacyadan qorqorahayaan ay qasqasahayaan ay kuleeyeen waa magacyo siryaani ah weeyaan waxay isku dayaan inay ku qanciyaan wax saxsan inay sameynayaan ana kan alxamdulillah luqada carabiga ayuu ilaahay azza wa jalla diintan noogu soo dajiyay oo waxa weeyaan quraanka af carabi ku qoran yahay ducooyinka nabigeena sallallahu alayhi wasallam af carabi weeyaan siryaaniga maxay tahay maxaan ku faleynaa ilaahina azza wa jalla wuxuuna weydiiyay inaan magacyadiisa aan ku xusno nabigeena uu noo sheegay inay yihiin 99 ayna ka badan yihiin sidaas oo kale nabigeena sallallahu alayhi wasallam waa noo tilmaamay ilaahay in lagu baryo marka intaas ay inaan ku joogsano weeyaan quraanka ilaahay ahadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam intaas ku ekaana weeyaan nabigeena nama dhihin sallallahu alayhi wasallam waxaan la yiraahdo sahoobi magaciisa oo siryaaniga waxa laga wadaa waa magacyada ilaahay azza wa jalla kamida maya nabigeena nama dhihin sallallahu alayhi wasallam waa been waa waxaan dajjaaliin waa dadkan taas dhahaya waana saaxiriin weeyaan waliba dadkaas oo hadlaa ogaada taageero adag ayay heesaan dad badan oo garab taagan waliba waxa laga yaabaa inuu ku dhaan anaka sixirka ma aaminsaninba isagana waa saaxir weynaaday waaye been uu sheegay ogo kuwa noocan oo kale markay sixirkaasi dhex galaan kama toobad keenaan waligood ku jirayaan illa ilaahay ku u naxariisto mooyaane especially qofka markuu jinni uu la shaqeeyo oo saaxiib ka dhigto sababta uga tagi waayeen maxaa weeyaan lacagta darajaday taagan yihiin dadka amaanahayaan marka arrinta koobaad waa dhaqaale iyo sharaf waxyaalaha ay sameeyaan maxaa kamid ah beena sheegaysa xumaad ku dhacaysa quraanka najaas ayaa isku qoraysa xurufiyo quraanka waxyaala najaas inta soo qaadida inka ka dhigaysa ku qoraysa xibr waxbaad ka jaraysa waxbaad ku daraysa waxbaad ka naaqusaysa sidoo kale qofka waxyaalahaas oo dhan markuu sameeyo wixii iska jir dadka hadaa u sheegtid balaaya ku dhacaysa qofku aaminahay male waa lagu
dilahayaa kan waaye tan kale ay u cabsoonayaan inay toobad keenaan waxa weeyaan jinniga ka cabsoonayaan inay dhibaatayaan shayaadiintaas la dagaalamaysa oo rafaadinahaya oo dagaal aan caadi ahayn ku soo qaadaysa marka ogow jinniga waa naga dhib badan yihiin oo waxa weeyaan ma ku deynahayaan bani aadam waxa laga yaabaa inuu ka haro ka tago laakiin jinni ma seexdaan ma nastaan ma fariistaan maalin iyo habeen dhibkaada un bay u taagnaanahayaan haddii maalin aad dhex gashay ood ka dhex baxdid ma ku deynahayaan ma ku cafinahayaan ilaa ina aad iyo aad iyo aad isku ilaalisid maalin iyo habeen isku ilaalisid ilaahay diintiisa iyo dikrigiisa ilaahayna uu kaa badbaadiyay subxaanahu wa tacaala waxaana la yaabaa asaaliib kale iyo waxyaabo kale sistemyo kale inay weliba kugu baadiyeen qof kasta sistemkiisa iyo nidaamkiisu leeyahay u gooniga soo kuu qanciyo waxa uu ku taagan yahay inuu 100% uu sax yahay qaladna kuma jiro insha Allah hadeerna waxaan idin furaynaa su'aal ilaa laba su'aal taana dadka ugu dheeraanin biidnillaahi tacaala tafadal sirta maxaa waaye sheekh ay dadkaanita u weydiinayaan qofka hooyadiis magaceeda sirta waan sheegnaa u maleynaya soo saas maaha waxaa dhici karta cashirkaas maada joogin adiga laakiin si kooban haddaan kugu sheego ogow sixirka haddii adiga aad ii timaadid oo kuu dhahday sixir ii samee waxaan ku dhahay magacaada iyo magaca aabbaha isii haddii marka aabbahaas adiga waxa yaaba inaad ogeen inuuna ahayn aabbaha ayaa dhici karta maba uu ku dhalinba laakiin waxaa u malaynaysa inuu aabbaha ayaa isagana wuxuu u malaynaya inuu aabbaha uu ku malaynaya aabba uu kuu yahay sixirkaas weligaa kuma qabanahayo ani waxaan fiirinayaa marka magacaada adiga meeqa xarfu ka kooban yahay 5 xarfi waaye tusaale aabbaha magaciisaan fiirinaya meeqa xarfi waaye 5 xarfi waaye okay waxaan fiirinayaa magacaada iyo magaca aabbaha maxaa isku eg xarfahe isku eg 28 xarfi oo luqadda carabiga ay ka kooban yihiin ayaan fiirinayaa mid ka mid ah hadday iska shaabahan xarfigaasaan soo qaadani ee iska shaabaheen marka xarfigaasaan ku shaqayni li'annu anaka xuruufaha waa noo qaybsan yihiin xuruufo kasta waxbaan u samaynaa qayb ka mid a marka waxaan fiirinaynaa qaybtee weeyaan xarfigan aan soo helnay magaca wiilka iyo magaca aabbaha ee iska shaabaheen waa qaybtee qeybaha annaka aan ku shaqayno sixirka xuruufahaasna marka waxaan u qaybinay kow xuruuf dab ah maxaan u dhahnay xuruuf dab ah sixirka waan samaynaynaa dabkaan saaraynaa waan karkarinaynaa maxaa marka dabka u saaraynaa li'annu adiga dab weeyaan magacaada marka xarafka haddaba adiga aabbaha ku shiraakowdeen xarfiga adiga aabbaha iskaga egtihiin wuxuu soo baxay biyo haddaana marka inaan kuu sameeyo sixir biyaha ah biya dhex gelinaya ceel ama haddii kale bad haddii marka xarfiga iskaga egaateen adiga aabigaha uu ka mid yahay xuruufta ciidda waa duugaynaa waxaan ku duugaynaa qubuurta waa hore dadka ugu dambaysay inay isku duugaan waxaan soo baxday adiga dabeelaad tahay magaca xarfigaada iyo xarfiga aabbaha ee iskaga ekaateen waa xuruufta dabeesha waxaan samaynaynaa marka intaanan ka hadlin waxaan sii wadayaa oo sheegahaya in xuruufaha luqadda carabiga annakaan u qaybina 4 qaybood qayb dab ah qayb ciid ah qayb biyo ah iyo qayb dabeel ah marka sixirkaada wuxuu soo baxay midka dabeesha maxaan samaynaynaa waan samaynaynaa shimbiraan ku xiraynaa ama geedaha dhaadheer mid ka mida korkiisa ayaan ku xiraynaa markaasaa dabeesha ay saamaynaysaa kaasna waa aad iyo aad u dhib badan yahay kan dabeesha ma sahlana sixirkaas marka annaga haddaan saa u samayno oo aabbahaane uu soo baxo qof aan aabbaha ahayn sixirkii ma kugu dhacayaa maya hadduu kugu dhacane awood badan ma laha qiimo badanna ma laha haddaa aadid meel cilaaja oo cilaaj yar aad isaartid waa burbura ayaa sabarkii qiimana ma laha laakiin aabbaha hadduu yaa kii runta ahaayo adiga ku dhala 100% shaki kuma jiro sixirkaas inuu si aan caadi ahayn uu ku dhibaateynaya haddii lagaa xiro xaaskaada weligaa waa ka xirnaanaysaa mar dambena nin ragama noqonaysid ma rabtaa inaa indhaha kaa tiro indhaha waa kaa tirmayaan mawaalanaya magaalada ma ka cararaya waa ka cararaya magaalada nafta ma kaaga jaraayo kow ma kaa siiya haa waa ku samayn karaa sixirka saas oo kale أيها الإخوة والأخوات كلمة دام الأمان لما يستركذا وحد كهريسة قيب تصدحات مع تحيات إخوانكم تسجيلات ابن حنبل الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله.